runtii meeshan waxay jirta waa dadka Soomaaliyeed inay sidan oo kale goobjoog u ahaato danaysa dadka Soomaaliyeed oo ku amaanaya ay hore u socdo oo hasi abaabusho wada jirka dadka Soomaaliyeed dadka xigtada ururka maanta dhismaha ganacsatada mid baan leeyahay ganacsigu in loo fikiro rabaa waxaan leeyahay kasii badiya nin kastoo meherad yar awoodaya ku soo koobin xilmaano ma aqal meeysan saawna naga dhiga ganacsigu inta xaga ku soo ranano runtii maanta aan maqlay urur baa dhismay xalay la soo sheegay halka qodada loo yimid runtii sawirkaas ku yaala han noqdo ganacsiga runtii Soomaalidu mid wax soo saarkeena sheegaya hano oo aynu inagu adduunka kula falgalano laakiin xoogsato barna hadii meel laabno magana saay wuxuu ugu celcelino macna badan musliminus wala la yaab sharci baa la rabaa in kala haga waxa la idin rabaa shaqo hufan iyo dadaal waxa la rabaa inaad siyaasado samaysataan ka turjumaya standardada dalkan aad maadeen ku nool yihiin waxaan filayaa ganacsiga dalkan inuu intaas soo standard u sirgaraysan yihiin intaas oo umuriisu aan hawl yareen intiina maanta la doortay ganacsatada badan ee dalkan joogto kuwa iman doona idinka chance ka xiga ka maalmaha joogtaan hadaad wax waasa qabataan sharaf weyn ka tagi hadaad dhex fadhiisan noqotaan oo xilka la dhex fadhiisi aad ku dhex walataan bari ka maalin waxa la oranayaa waqtiga laga hadlayay ka idinka waxa leeyahay ka badiya oo businessku ama ganacsiga maanta ka shaqo noqdo mid aad u fikirtaan oo xageenu ka toosinaa maxaynu soo korinaa maxaa dadkeena wadana dalkeena waxaynu isku haysanaa waa faqri waxa tobanka maamul goboleed laga dhigo wasaaradda kaasi waxa laga soo dhoofinayo dadku xirayaan ku tiirsanaanta wax badan oo xun bayaan dawladtaana way ka fariya qolada ganacsatada iyo daahiriya dimuqraasiga chance ma joogo bulshada Soomaaliyeed faraha badan war waxba qeyb salaanta macna badan qofku waxa la misada iska hayso adeeg ku jirtaa laakiin maanta basan kala dhex maray hadaa qof ku dhaco kula dhex dagaalamo ama wax u sameeyo qof kasta waxa laga yaabaa in fikir khaldan ay ka wada qaato Soomaaliya ka dad masaajid ku jirtana waa lagu dilay hadaa meel ka joogtana waa waxa fiican in community adag ama jaaliyad adag oo Soomaaliyeed la samaysto wacyigelinta oo kamid daahir mar iri runtii aad looga shaqeeyo waxa maalmaha kamid ah leeyahay masaajidka lama geli karo hadaa sharbaadada iska sii ama sasaarta waa dhaqan ay leeyihiin dadka hadaan jaaliyad dadka waxa uu sheegtay leeyahay hadaan jugtana in habeen oo wax garaacna inaan ka dhigay waa guri kasta ashkata taala ma taqaf Soomaaliyeed ka jaaliyada Soomaaliyeed isma inay nolosha dadka kala shaqeyso oo dadka Soomaaliyeed noqdaan qaar wanaag ka turjuma qaar raadkooda la jeclaysto ay inaha saagu meeysan kuntii isku talin lahaa iga qaali ahaada Cabdirasaaq iga weerarsan hadalka iga lahaa xalli guri bacdamaad ka soo hor xaadirtay hadalka dhex waan idin wada bogaadinaya dhammaan sharafka kale iyo dadka ajaanibta dadka wadanka leh inuu inaga soo qayb qaatay kulanka waan salaamaya dhammaantood salaam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا ومهندسين حلمان أنا بولد عيدروس أنا وحاد كسر وين يا سفير كنا أمباسطور جامعة عبد الله محمد كسر الله وبركاته. وكان انت حقه سوشيدي بعد سوق dadka soo xaadiray runtii xafladan hawshan saacada meesha ka dhacday kulligood waa mahadsan yihiin waqtigooda soo horay waxaan aad iyo aad marka hore ugu mahad celinayaa guddigii doorashadan ku guulaystay magacyadooda noomay sheegin afartaasaan malaynaynayeen saxiib baa ka maqan mid baa ka maqan marka aad iyo aad horta iyaga ugu mahad celinayaa sababtoo ah waxay ku guulaysteen hawl aad u ballaaran abaabulka ganacsatada diiwaangelintooda yaa murashaxa xagga waqanidii intaa waxaa isleeyahay hawsha ugu badan iyagaa qabtay maxamed yaree laftigiisu hawl yar ma qaban annaga halkaasuu noo galay maalin iyo habeen waan hortaagnaa ganacsada arrinteeda halkaasay maraysaa tan ay nooga baahan tahay maanta halkaasay ka dhacday intaasaa caqabada taagan ma seexan wiilkaas marka isagana runtii sida
horeyba loo sheegay oo ku mahadsan yahay hawshiisii uu qabtay waajibkiisii uu ka soo baxay waxaan rajaynaynaa inuu halkaa kasii wado dalku aan kala keliya ma aha istanbul baa jirta oo raba iyagana in lasoo dhiso ganacsatadooda meelo kale hadday joogaan ganacsatadu waa in loogu tagaa oo loo soo dhisaa kadibna tii turkiga la dhisaa ganacsatadii councilkii waddanka turkiga oo labada magaalo iyo haddii magaalooyin kala jiraan ka kooban waa in la dhisaa intaba waxay u taallaa maxamed iyo kaashoo la shaqaynaya annagu insha allah wixii karaankayn waxba kaaganaya ganacsatada maanta halka joogta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida isxilqaanka leh ay hawshan uga wada qayb qaateen rag iyo dumarba aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa doorashada maanta halka ka dhacday waxay ahayd sida loo sheego doorasho xore oo xalaal markii hore waxaan moodayay guddoomiyaha inay dooranayaan golaha dhexe laakiin waxaa la yidhi dadka o dhan baaba dooranaya marka wuxuu noqonayaa dadka soomaalida ee farakutiriska ah ee public vote kusoo baxay buu noqonaya ninkan la yidhaahdo maanta soo baxay waxyaalaha kale aanu ku farxnay waxaa ka mid ah qaabkii golaha dhexe loo doortay oo isagana hal cod lagu wada doortay maca guddoomiyihii macnaheedu waxa weye xitaa guddoomiyaha golaha dhexe waxaa doortay ganacsatadoo dhan master ismaaciil axmed ismaaciil isagana kulli waa ninka haynaya isku haynta qaabilsan golaha dhexe markii la leeyahay waa baarlamaankii oo kale marka ninka baarlamaanka mas-uulka ah isagaa isku haya shacabka iyo safaaradda iyo maamulka ganacsatada iyo turkida iyo waxaas oo isagaa isku haya isaga ayaa dastuurkooda ilaalinaya oo kula xisaabtamaya marka ismaaciil iyo xubnaha kale golaha dhexaana aad iyo aad baan bogaadinaynaa saddexdii murashax laftigooda waa bogaadinaynaa ma kala hinnayn laakiin waa loo kala hiiliyey waa ma kala dhicin saddexduba waxay soo bandhigeen karti iyo barnaamijyo fiican master daahir waxaan ka rajaynaynaa inuu barnaamijyadii ay soo jeediyeen oo dhan urursado oo waxoo dhan waa nuga fadhina taadi keliya kaama fadhina ballanqaadkaaga ballanqaadka nimanka kalena kala wareeg oo kulligoodii isku liiskarayso doorashadaasi waxay tusaale u tahay doorashooyinka kale raba inaan qabsano hadda waxaa ka horreysay doorashooyin ardaydu sanad walba qabsadaan oo si xor iyo xalaal u dhacda tanna waa doorashadii ganacsatada waxaan ka rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed ee turkiga degan meelay joogtaba gobol kasta ha joogto ama jaaliyad ha isku doorato ama ganacsata ha isku doorato ama ururo kaloo magacyo kale ha isku doorato inay sidan oo kale isu abaabulaan weliba aada iyo aad tan waxay uga sii xeeldheeray ganacsatadii waddanka joogtay oo dhan baa ka qayb qaadatay oo layskuma hadlayn oo nin waliba ma oran anigu dadka kale aygaga filan raggii ugu waaweynaa iyo gabdhihii ugu ganacsiga waaweynaa baa meesha maraya oo iyagu safka hore ahaa marka waxaan ka rajaynaynaa istanbulna inay sidan oo kale isu abaabulaan oo mid ka fiican tan ay loo soo bandhigaan insha allahu tacaala sida waktiga ugu dhow waana lagu guda jiraa iyadana waktigaa laga hadlay saddexdii galabnimaa nala ballamiyey meel baan diyaar ku ahaa waa lagu soo wacayaa sug markii dambe waxaan ku yidhi waran idin sugi maayay waan idin imanaya min fadli dadka soomaaliyeed ha iska ilaaliyeen